salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada kanaalkeena la magac baxay ogaansho guud. sida loo noqdo qof caqli badan. caqli badnidu waa awoodda wax lagu barto si dhaqsi ah, waa awoodda lagu abaabulo laguna aruursado xogag badan, waa awoodda lagu sameeyo go'aamo sax ah, isla markaana waa awoodda lagu xaliyo dhibaatooyinkaaga. warka fiican aan ku hayo wuxuu yahay inaad kordhin karto heerka caqligaaga haddii aad samayso faalo aan hadda kuu sheegi doono. 5 waxyaabood oo kor loogu qaado heerka caqligaaga. 1. kordhi aqoontaada. qayb weyn oo ka mid ah caqli badnidu waa inaad hesho ama aruursato xogag badan si aad u samayso conclusion iyo go'aamo fiican. haddaba aqri oo baro wax badan si aad u hesho xog badan, isla markaana aad u samayso go'aamo heer sare ah. qodobka 2. kor u qaad isku xirnaanta maskaxdaada. weli ma isweydiisay oo mala yaabtay farqiga u dhexeeya maskaxda iyo maskaxda maroodiga? maskaxda maroodiga waxay 3 jibaar ka weyn tahay maskaxda bini'aadamka, haddana bini'aadamku wuxuu aad ugu caqli badan yahay maroodiga. haddaba su'aasha waxay tahay, maxay bini'aadamku ugu caqli badan yihiin maroodiga ayagoo maskaxdooda intaa ka yar tahay? jawaabtu waxay tahay xiriirka u dhexeeya iyo isku xirnaanta unugyada maskaxda ee bini'aadamka wuxuu aad ugu badan yahay tan maroodiga. haddaba si aad kor ugu qaado maskaxdaada aadna u noqoto qof caqli badan, kor u qaad isku xirnaanta maskaxdaada adigoo baranaya xirfado adag ama ciyaaraya games adag sida gameska loo yaqaano chester ama sudoku. inta badan aad isku xirto maskaxda waxaa badanaysa inta badan aad noqonayso qof caqli badan. qodobka 3. raac oo ku xirnow dad caqli badan. ma og tahay in hanaanka loo fikiro la kala baran karo? inta badan aad raacdo dad caqli badan waxaa kordhaysa inaad awood u yeelato inaad fahamto qaabkay u fikiraan. taasi waxay kaa saamaxaysaa inaad noqoto qof caqli badan. qodobka 4. cuntadu waxay saamaysaa waxqabadka maskaxda. ma og tahay in maadada ku jirta koofeega ee loo yaqaano caffeine ay kordhiso foojignaanta maskaxdaada ayna horumariso concentrationkaada, tani ay sii kordhiso awoodda iyo xawaaraha ay ku shaqaynayso maskaxdaada. hal koob oo koofii ah aad cabto waxa aad kaga caawinayaa inaad isticmaasho awoodda dhammaystiran ee maskaxdaada. qodobka 5. sii hawo badan maskaxdaada. markii aad si xooggan neef u qaadato oksijiin badan baa gaara maskaxdaada. tani waxay kor u qaadaa awoodda fikirkaaga. bal isku day inaad jimicsato, intaa kadib bal shaqay mise wax baro. waxaad ogaan doontaa in horumar ballaaran ku yimaaday. muuqaalkan ku anfacay like saar. haddii aad channelka ku cusub tahay aan hubo inuu faa'iido kuu leeyahay subscribe. wixii ra'yigan nagu soo gudbi qaybta commentiga.